nacdal kartiga Soomaalidan gaalooday ay ka qabsadaan kulaha kaale diinta walaal noo faafiyo Bible-ka sawirkiisa bay soo dirayaan Jesus ka ku barakayne wuxuu bay kaga dhigtay ilaahay baa ruux soo diray oo ruuxdii baa Maryama la faraka ciyaartay oo Maryama dhashay deetana ilaah kale saddex ilaah magacayga waxa la yiraahdaa Michael waxaan ahay Soomaali Christian Masiix waxaan deganahay dalka Talyaaniga اسم مسيحي waxaan ugu talagalay marxaati oo furo waa rabbigayga ilaaha nool waana ilaaha qura dhabta adduunka jira inankii Muuse tahriibay yaa markuu Yurub galay buu Michael la baxay Bible-ka akhri dhageyso beerka lagu dhufay ilaahaydanki kog gadbada qamadiga daraadeed buu diintii uga baxay ilaahay ku kulaha Soomaali baan nahayo Bible-kaanu akhrinayo diintuna barayo wallahi baan ku dhaartay midkoodna Bible-ku wuxuu ka sheekeynay macnihiisa ma garanayaan iyaga daraadood maanta library-gan tig meesha buugta marka sanaka cadamada ku walaal buug Bible-ka la dhamahay marka say Allah ilaahay baa ku soo hanuun beerka lagu dhufay balka soo hanuun dad baan qancinayna buug ma haysa Bible la dhahay aduu day ala kulli xaal naagti waxaan la murmo buugii Bible-ka haway soo dhiibtay waa kan sadarkaysaanba Soomaalidiina gaaloodow dhagaha soo fidiyay aayada ugu horeysan ee akhrinay Okay, I do go water. In the beginning God created the heavens and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God was moving over the face of the water. And ayadan hore waxay sheegaysaa in Ilaahay markii ugu horeysay dhulka iyo cirarka abuuray dabeedna dhulku uu mugdi ahaa oo leer uuna jirin iyo iftiin marka intaan waan isla garanay Soomaaliya baraar Ilaahay markii ugu horeysay wuxuu abuuray dhulka iyo samaawaadka marka samaawaadka iyo dhulkuba mugdi bay ahaayeen markii uu abuuray la socyaha iga lumin So ayadii ku xigtaan akhrinana and God said let there be light and there was light and God saw the light was good ijoga tabaan ku macnaayeen taas Ilaahay wuxuu yiri iftiin oo jira oo Ilaahay iftiinkii buu abuuray dabadeedna Ilaahay wuxuu arkay in iftiinku adduunka u fiican yahay macnaha Ilaaha meeshan Bible-ku ka sheekaynayo ka Ilaah mustaqbalka ogba maaha Ilaahay markuu rabo inuu sii gartay in adduunku leer iyo iftiin u baahan yahay meenahan annaga buug yaro mid meelaha carcarray noo soo qoray baad nooga dhigaysaa buug Ilaahay ka yimid Ilaahay kama imas buugan sababtoo ah Ilaahay waa ka future-ka wax dhici doono og Soomaalidiina gaalowdow waan aad baan ugu xumahay inaad qamadi daraadeed u gaalowdaan laakiin se buugani Ilaahay kama imanin qad ku xoodhay sababtoo ah bili aadan baan aqal baan leenahay Ilaaha aynu caabudana waa inuu noqdo Ilaah waxa dhici doona iyo wixii dhacay iyo waxa socdaba ogdee Soomaa annaga andalada markii hore Ilaahay dhulku abuuray dabeedna dhulku mugdi buu ahaa dabadeed buu Ilaahay iftiin dhulka u abuuray dabadeed buu Ilaahay gatay dhulku iftiinka u baahan yahay way to kale hadda leedin Ciise waa Ilaahay oo haddana aad leedin Ciise waa la dilay diwaaye intii uu meedka ahaa yaa dadka kale ka dhinta leeynayay ila Ilaahayna waaba ka dhintay على كل حال إن Soomaalidii nagaalado tuushka iska carartan waa iska dhooqaysan Bible-kan ciidama akhrin sababtoo aayada ugu horeysay ayaa sheegaysa inuu Ilaahay ka iman wax ma dhaantid kuwa sanamka caabudaya ee u sujuudaya ee maalintii gaajoodana intaha kala soo baxaya ma lugta goosanaya maalintii dhargaana qayb ku dhijinaya dheeraada intiina kala hurdo garan maayo laakiin marka buug laga dhiibo waan akhriyaa waan jeegarayaa waan baaraa idinku waa iska qaateen toos idinku waxba jeegaray dulli horta Ilaahay cadaabkiisa ikhtiyaarka Ilaahay baa lagu galaa Ilaahay cid u qabsanaysa ma jirto ama la xisaabtamaysa jannadiisana sidoo kale anigu caalim ka tagay meeyim ogta oo expert sheekh weyn meey laakiin sida Ilaahay sida loo tilmaamo waan garanayaa waxaan ku tilmaamayo Ilaahay ilmo yar buu dhalay iyo Ilaahay waa la dhalay iyo saddex Ilaahay baa jiray iyo Ilaahay wuu seexdaa iyo Ilaahay saqad wuxuu soo dhawaadaa iyo waxa kuma tilmaami kartid haddii aad isweydiinaysid Ilaahay maxaan ku tilmaamaa markaan qof uga sheekeynayo sideen u tilmaamaa waxaad Ilaahay ku tilmaamaysaa wadhowda 99 magaca Ilaahay ma ku tilmaami kartaa Ilaahay wuu naxariistaa ar-Rahmaanu Ilaahay waa kii wax nabad geliya as-salaamu Ilaahay waa kii wax bixiya al-Wahhaabu Ilaahay waa kii wax quudiya ar-Rasaaqu magaciisa isticmaal Ilaahay waa ka wax abuura al-Khaaliqu Ilaahay waa ka wax hanuuniya ar-Rashiidu ama al-Haadi Ilaahay waa ka awood leh al-Qawiyu ama al-Matiinu waxba gaar yar oo futaqar muu iska dhaadhicin oo adigu inuu nooshahay in kala aan ku ogeyn anigu Soomaali kuma dhax korin dambi malihi wala walaal filimada waa daawatay ma qumayga xuna qoorta subxaaniyada ala meekal isku sheegayna waniyada waxaan ku leeyahay way ku jiitaro way ku lumiyeen qoladana daba gashayna saciiriya jahanimo sii socdaanay Ilaahay ka soo reebo hadii kala ku
qolo kalena waxay la soo baxday dee annagu sayniskaanu baranaayo dee PhD gaanu baranaayo dee ilaahba ma aaminsanin oo adduunka dhambe accidentii buu ahaa iyo big bang iyo waxaan la garanay marka listen you damn ass xoolo fartada afgaranaysan ku gelin something cannot come from nothing there has to be a reason and the reason we believe is Allah subhanahu wa ta'ala so what is the reason you believe kulaha adduunka dhambe shil buu ku yimid oo markii hore waxa meeyna jirin dabeedna bum dhul baa jiray dabeedna bum bilaadan baa abuurmay ruuxa saaqliga ma galaysa wax ka fiican oo la yimaada kuwiina PhD ga sayniska baranay ta kale nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wuxuu markaa ilaahay ka sheekeynaysan farta isticmaala macna midnimadiisa iyo kalinimadiisa cadeynaysa qola la soo baxday sidan moogta dee kulli xoolanimadii baa wali ku daba socota tan aan ku fasiro waa dhawaan tahay sidani waa Allah kalinimadiisa sidanna waa ilaahay baa u shariig yeeshay macnaha waad gaalowday alla walaal bisinkiisa siinka walaal sidan sawirada uma ku galaayo uma jeedin qaska sawir laga gali ilaahay idankii na sidan shaydaanka caabudaa soo saaray adna waad ku dayatay maya way iska caadi hadaad xoolo tahay oo ari tahay oo aadan ogeyn way iska caadi kulama yaabayo laakiin ta xooluhu mar bay soo noqdaan dee soo noqo si lumine haddii aad videogan daawanayso adoo caafimaad qabatay macnaha weli fursad baad haysataa ilaahay ku siiyey saad ku ogtahay inuu fursad ku siiyey dee weli waad neefsanaysaa weli waad socotaa marka weli fursad baad haysataa haddii ay laba diinta ku murmayaan oo mid saddexaad arko inta soo carooranaya allah ku murmina diinta dembi baadna gelinaysan hadday ciyaaraha ku murmayaan inta kursi soo qaato ag fadhiisanaya oo dhegaysanaya mid kalena ku sheegay sidanna way soo baxday sidan mad garanaysaa bal car wax ka sheeg fursad baan ku siinaya bal maxaa halkaa kaaga muuqda marka sidaa la dhaqo maskaxdaadana dee way iska weyntay ma ogtay waxyaad aragto waad iska qaadanaysaa sidan waa qoladii odhan jirtay saddex ilaah baa jira waad arkaysaa maaha waa lagu hoosgeliyo caqliga alla kaama qaaday haddii dee ay kula fiican tahay xoolanimadaada in wax alla wixii kusoo galaba aad iska qaadato adoon sheekarayn dee naag birta leerhka ag maraysa haddii birta leerhka kusoo dhacdo waa in iyaduna iska qaadato dee xaa kalaa uga baxday meenayn yadda iyaguna qolyahan sidan dhaxa waxa weeyaan hal il keliya hal il yaale dee waa dajaal waa shaydaankii hal iluu leeyahay moogta halkaa عادي ويسكا عادي هدي حول ما يقولك دوس ويسكا عادي ولك ما يابا موقته واذيقون والله وتر رحنا وبكو دحدعد انا واد اسكا قاto iska qoslaysa in hadii aad aragto bas socda oo hadana xaga ay to darto meeshu basku istaagi jiray ama bus stop tii aqligaagu iska garanayo inuu basku barta istaagi doono marka eeriyen bameys marka waxaan uga golnay waxyaabo waxa jira aqliga bilaadanka la iska garto waa qiimeyn marka calculation baad sameynaysaa maskaxda mise iska fududaatiin u diiwaansidee